السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض أودي الملك استوجوكتان كسر دوادة برنامج كأنه كوي إنه صندوق هرمرين الصومال يعني SDF ميلها لجمع الجليو برنامج كأن الواحد نقوم مرتيح ماريها وكالة بيها مقالة هرجيسة إبراهيم سياد يونس أو أنه كوي جدونه بيبلغنتها مقالة هرجيسة iyo xaaladaha biyaha magaalada Hargeysa halka marayaan anigu horan TV Universal ku soo dhaw maray mahadsantahay soo dhaw ugu hore waxaad warbixin guud naga siisaa xaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa sidaan loo wada socono Hargeysa waa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland waa magaalada ugu ballaaran Somaliland muddadii dhowr iyo 20 sanadood qaranka ahaynba caasimadda Hargeysa waxa ka jirtay dhibaato xag badan oo xagga biyaha sabab badan bay ayaa loo aaneyn karaa ilaa imika dhibaatadaasi way ka jirtaa waxaana mas'uulay yani dhibaatada ugu weyn ay tahay sababta ugu weyn ay tahay iyadoo Hargeysa caasimadii noqotay mashruuca ama imika systemka jira imika biyaha Hargeysa ka hesho oo la sameeyay phase-kiisii koowaad 1972kii phase-kiisii labaadna la sameeyay 1986kii dadweynaha waqtiga magaalada ku noolaa waqtiga waxaan ahayn Soomaaliya magaaladii labaad bay ahayd Soomaaliya Muqdisho ahaan jirtay caasimadda dadka Hargeysa ku nool aad bay koobnaayeen Hargeysa watii laga qaxay burburtay soo noqoshadii markaynu qaran noqonay Jamhuuriyadda Somaliland noqonay Hargeysa waxa dadkeeda koritaankeedu wuxuu noqday magaalooyinka Afrika ugu koritaanka badan leh ilaa waxa lagu qiyaasaa 5% in sanadkiiba ay kordhay dadkeedu nasiib darro may dhicin in biyihii la kordhaan dadkii biyaha hadda jira waxa lagu qiyaasay inay ka cabi karaan dad 180 qof maanta Hargeysa waxa ku nool dad kor u dhaafaya milyan iyo 200 qof sida qiyaasu tahay marka waxay sababtay iyadoo haba yaraatee wax biyihii ku soo korin caasimadii oo systemka imika jira lagu talagalay 180 qof ilaa imika inuu dul fadhino sababta ugu weyn waa magaalada aad ku koraysa dad fara badan oo qurb jooga ku soo noqday goboladii Somaliland bal isku yimid caasimadii weeyaan xaruntii ganacsiga noqotay xaruntii dawladda noqotay xaruntii hay'adaha caalamiga noqotay Somaliland oo dhan miyi iyo magaalooyinka dhan halka Hargeysa isku yimaadeen sidaas darteed waxa kala badatay baahidii biyaha iyo systemka aynu haynay marka dhowr 20 sanaba dhibaato ka taagneed alxamdulillah laakiin maanta waxay noo socdo mashruuc waaweyn oo biyo ballaarin ah oo iska kaashadeen labada qaaran bixiye ee midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Somaliland SDF oo ku midoobeen afarta dawladood reer galbeedka ee Ingiriiska, Denmark iyo Norway iyo Netherlands ka mashruucaasi ayaa hadda socda ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu guuleeyo way maari halku maraya mashruucii biyo ballaarinta magaalada Hargeysa meel gelinayeen EU-da iyo waliba SDF mashruucaasi sidaan horeba u soo sheegnay waxa maal gelinaysa sanduuqa horumarinta Somaliland iyo midowga Yurub waxaana fulintiisa wada hay'adda UN Habitat waxa kale oo ilaalisa shirkad Jarmal ah oo la yiraahdo Fitchna Water and Transport mashruucu waa mashruuc caalami ah muddada uu socday waxyaalo badan baa yani wuxuu ka kooban yahay qaybo far badan dhammaan tandaradiisii waa la xayeysiiyay tandaradiisii badankiisu caalami ah shirkad caalami ah ku guuleystay sida shirkadii ilaalin lahayd quality-ga iyo yani ilaalin lahayd tayadiisa mashruuca oo ay ku guuleystay shirkad la yiraahdo Jarmal Fitchna la yiraahdo oo labadii sano ugu dambeeyay magaalada la joogtay soo iibintii qalabkii dhamaan beebabkii mashiinadii aabtii mashruuca looga baahnaa oo dhan oo shirkada caalamiga badankooda ku guuleysteen dhamaan qalabkii looga baahnaa mashruucaasi wada yaalan Hargeysa waxa bay yaraatay maanta inaga maqan ma jirto tusaale ahaan 320 kilomitir oo beeb ah oo 600 millimeter oo beeb aad u weyn ah waa la soo iibiyay 500 container buu ahaa sanadkii hore ayuu bartankiisii dabeeqadiisii yimid wuu inoo yaalaa 6 kilomitir beeba oo geed dawlad gudihiisa iyagana wala soo iibiyay way yaalaan afar ceelbiyood lagu qoday hore hadlay iyagana waa la qodo waa la dhameystiro biyo fiican baa laga helay qoditaanka beebkii la soo qoday geed dawlad ilaa Hargeysa badankiisu uu dhamaatay ilaa 17 kilomitir ba maanta dhamaaday oo 320 kilomitir 6 kilomitir ba harsan insha Allah isaguna bilahan soo socon rajayno dhamaado ceelashii laga soo qaaday hore hadlay geed dawlad lagu soo xiray iyagana way dhamaadeen beebkii qoditaankoogii xidhkoogii baamkii biyaha soo turiyay generatorradii waa la soo iibiyay way noo yaalaan dhismihii barkad weyn iyo kaam cusub oo laga dhisay geedable uu socdaa si wanaagsan buu socdaa nashqadii magaalada gudaheeda sameynteedii iyadoo si fiican bay u socotaa waa gabagabo xaafadan ayaxwan ayax tuleera oo 7 kaalmood biyood iyo pipeline 5 kilomitir laga dhigay iyagana way dhamaadeen oo si fiican dadku u cabaan dad dul deganaa barkada biyaha lafteeda oo aad u farbadnaa 142 qoys ah guryo cusub loo dhisay oo dawladda Japan lacagtooda bixisay iyo Habitat-na fulinaysa isagana uu dhamaado dadka waa laga rabo barkadii maanta waa kaliya dusheedii deer adag baa lagu soo xiray marka mashruucaasi markaan eegno intii ugu badnayd way dhamaatay waxyaalo yar oo kooban way harsan yihiin waayo mashruuc aad u adag laba mid ah mashaariicdan wadanka ka socdo oo kale
ومشروع بيه هذا يجري ومشروع عاد علمي فربضان وباهن أقوم فربضان وباهن ومشروع أي شفولين أما قدراس كي سقاطة شركة إثيوبيانية فرنسية وشركاء أي إلى علينا سنة شركة شرمالية مركز وقرن كرت أود لو جبه هي أقوانهان الحمد لله ميلو نحسن بمرة إلى هنا كرتشينا إنه قبل دويد سنقصنا وهي هذه أيضا ما سنت هاي داود يلوحة أن برامج كأنه كمرتيا بالشوين تا كنا غن مجالات هرجيسة ما حافظة كل دون مجالات هرجيسة ويجوا ستوسا ويدين دونا سؤاله جماريها وكالة بيها وسوق كمرتيا برامج كأن وحنسينا يا ميت كم إذا ددوينها وحويدين سؤال شو حتى أن ماري واحد نشأت إني مشروع كقيب قاعدني هذه عالمية دلكم نحولي أقونيهن هذه أقوب الناطات حنانو كذا تيار تدا سوق عسى شيل كحبرانية أيوه هرينا عدد إنجنيرة جمعة كل يوم صباحية حجيج كينو موحية هي إن إلا مستقبل كناصي ودان هيدا عالمية بس وحويان إن ندير قلنا إنه علمي جيو حي بروجكت يدا يتيسس كيو ريسيرش كايسمينا إنه يدنا كده بقنا إنه أقونتنا كده بقنا. horta baan ugu faraxsanahay waan jecelahay aqoonyahanka wadanka jooga inay ka qayb qaataan mashruucan biibalaarinta caasimadda Hargeysa shirkadda fulinaysa Ethiopianka Faransiiska in badan oo la shaqeysa waa ardaydii ka baxday wadanka ee jaamacadaheena ka baxay Somaliland iyo kuwa dibadaha ka yimid hay'adda UN Habitat mashruuca maamusha dhammaan shaqaalaheedu marka laga tago laba qof oo ajaanib mooyaan waa reer Somaliland waa reer Hargeysa jaamacadda dibadda iyo kuwa gudaha bay ka baxeen xagga ardaydeena wadanka gudihiisa wax ku bartay haddii position loo baahdo kale waa la xayeysiyaa nasiibkiisa qofka qaadaa waxa dhalinyaro farbadan oo wadankeena joogtay aad u farbadan hadii jeer business iyo IT baa la bartaa haddii loo baahdo qof biyaha takhasuskiisa leh waxa laga yaabaa in aad u koobnaato xitaa ku Hargeysa masterska ama diyaarinay dibadda ku soo diyaaraya waxay soo bartaan waa business iyo IT laakiin waxaan aad ugu dhiirigelin lahaa inay engineering ka tusaalaha wax ku filan bardhow talo waxaan xayeysinay electrical iyo mechanical engineering habeerato qof wadanka waa laga waayay ardayda Hargeysa laguma barto electrical iyo mechanical engineering waddankiina aad buu ugu baahan magacaygu waa Cabdixakiin Maxamed Xasan waxaan deganahay xaafadda Axmed Dhagax gaar ahaan xaafadda October waxaan ahay arday dhigtay jaamacadda New Generation faculty Journalism and Mass Communication maareeyaha waxaan weydiin lahaa waxa uu ka sheekeeyay mashruuca biyo-gelinta magaalada Hargeysa oo uu ka warbixiyay marka warbixin fiican baad naga siisay mashruucii aad ka warbixisay wax ka filay ma jiraan imika bulshooyinta magaalada Hargeysa u sheegi karayso 6 bishii May sanadkan waraysaad bixisay waxa uu ahaa halka manhal inaad dhigi doonto taangi weyn oo lagu soo bamgaran doono biyashiinaha dabadeeto halka xaafadda CB heli doonto mashruuca laftiisu maadaama sanadkii gabagaba yahay kii halku ku dambeeyay horta mashruuca biibalaarinta caasimadda Hargeysa qodobadiisa badankiisa ma ka hadlay wada fuleen maaha wax laga yacni uu fuli doonaan leeyahay hadii xaafada ayaxwan ayaxtu la yiraahdo ama ayax triba waad ogtahay oo biyo 7 kaalmood oo biyo baan ka sameeyay biyo noo keenno maanta alxamdulillah si fiican bay cabaan maaha wax laga sheekeeyay wax dhacay mashruucan ceelashiisi waa la qoday beebkiisi waa la dhigay 17 kilomitir baa dhamaaday barkadiisa fiican bay u socotaa ceelashu way dhamaadeen dhammaan qalabkii loo baahnaa dhan dibadda looga baahnaa dhammaan uu dhameystiran yahay marka insha Allah dhameystirkiisu ma mashruuca dhameystirkiisuna deadline buu leeyahay waqti buu leeyahay shirkadda qandaraaska qaatay inay ku dhameystirto haddii ku dhameystiri weydana lacag ku socon sayada waad garan kartaa shirkad breefada oo leeyahay lacag baa ku soconaysa marka inay ku dhameeyaan waa qasab afartan geew waaweyn baa laga sameeyay degmooyinka caasimadda Hargeysa oo ugu horeysa degmada Axmed Dhagax oo iskuulka laga sameeyo Al-Huda School la yiraahdo barkad weyn oo aad weyn iyo distribution casri ah manhal school ama hostelka manhal dibadiisa Al Maktoum schoolka la dhaabay isaga barkad weyn laga sameeyo distribution casri ah gacan libaax geerish oo cali geerishkii loo oran jiray buurta ka soo horjeeda taangi weyn laga sameeyo iyadna xaafadan koodbuur joognada buurta weyn ee xagga inaga xigta ayaa laga sameeyaa taangi weyn ka mashruucaasi uu ka duwan yahay mashruucan imika aynu hawshiisa halkan ku hayna laakiin waa mashruuc isaguna la xayeysiiyay shirkadda ilaalin lahayd oo shirkadda consultancy-ga noqon lahayd waa la doortay oo shirkad Sharmalo CS la yiraahdo loo doortay insha Allah dhawaan bay magaalada iman doontaa waxa jira maaraya maxaa ilaa hadda carqalada ay diga yimid inta mashruucan waday wala caqabado farbadan naga yimid laakiin waxaan isku daynay inaanu caqabad kasto naga hortimaado xalino waa mashruucu saynu la wada socono mashaariicda wadanka fushahada hada ay dhibaatooyin badan baa ka taagan laakiin mashruucna waa mashruuc ugu dhibaatada yar leh dhibaatadana waxa nagu wacan inuu yaraato anagoo marka hore si fiican uga baaran degnay hawsha sida loo galayo caqabadaha ugu waaweyn waxa kamid ah balowdhu ku soo hagaagaya guriga ku soo hagaagaya beeru ku soo hagaagay oo beero dhan oo beeran oo liinaho 10 sano beerna iyo cambiyo xulbu ku yaalan ku soo hagaagay alxamdulillah hadana anagoo aan wax jabaqay ka yeedhin waanu xalinay
aadna wax nagu mahadnaqaya cid kastoo gacan ka geystay oo ugu horeeyaan dadka deegaanku gudiyada si fiican uga shaqeeya hari habeen ka shaqeeya dadkan qaaranka bixina waa dad dawladihii ugu waaweynaaye reer galbeedka ama midowga Yurub ha noqoto ama SDF ha noqoto iyaga laftooda waxay ilaalinayaan deegaankii dadkeena deegaankuna inaguna deegaanku kale khibrad badan ma lihin ma ogin deegaanku wuxuu saameyn leeyahay marka geedo ayuu tusaale kusoo hagayaa beebkii shirkadii Jarmalka hadda consultancy waxay oranaysaa geedkan lama jari karo inagana geedkii micno badan nooma sameynay xaggeena marka dadka dadkeena waxyaalaha had iyo jeer dhibaatada nagu keena iyo isla fahan waaga laftiisa shirkadan consultancy-ga Jarmalka iyo shirkadan Ethiopian-ka ama Faransiiska fulinaysa laftooda in badan ba had iyo jeer isqabsi dhexdooda ka yimaado oo ay quality-ga ilaalintiisa mashruuca quality-giisa hadduu wax yaro sentiyari wax ka noqdo mashruucadii baa laga joojinaya nimankii marka waxaanu leenahay bishiiba hal meeting maan leenahay oo la yidhaahdo monthly progress meeting oo bishii 27-keeda ama 28-keeda aanu galno weekly-na sabti walba waan isku nimaadnaa waxaa isku yimaadaa wakaaladda biyaha Hargeysa oo chair galaysa shirka UN Habitat iyo Fitchna iyo shirkadii qandaraaska qaadatay marka wiiga maxaa dhibaatay naga hor yimid maxaa caqabad naga hor yimid maxaa inoo qabsoomay maxaa dhibaatay dib u dhacay waxa kale iyadna aad noogu dhibaato badan nagaga soo caqabadaha ka mid ahaa waxa ku soo hagaagay dhagax fara badan bay leedahay meelo eriyooyinka qaarkood magaalada dhexdeeda maalmo dhow muddo dheer baan in yaro dhowr mitir ayaan taagnayn shirkadii Jarmalka hadda consultancy ma ogola in miina la isticmaalo waxa leedahay deegaanka wax yeelaya qawan check hammer la isticmaalo check hammerkii intaas oo check hammer baa dhamaanaya ka caqabadaha ugu faraha badan nagala kulmay wax kamid ah xabaalahaas oo si fiican u xalinay beero u dhex maray biseesas u dhex maray oo kala raba inaan isticmaalno blue oo kala qoranaya ama saan oo kale ama green oo kala dad marso deegaanka wax yeelay marka kala la qabsan kara oo dhibaato u keenay deegaanka magacaygu ayaan diiriye waxaan ka socdaa xaafadda Xeraawr waxaan ka shaqeeyaa wasaaradda caafimaadka qaybta hooyada dhallaanka maareey waxaan weydiinayaa wax kasta qorshayaal bii leeyahay marka muddo imisa laga yaabo maalinaysa Hargeysa ku heli karto biyo ku filan caruurtooda biyaha waxay u haysataa qasabada laga sheekeeyo kuwan gaariga ku yaala tuubada leh booyada laga shubo biyaha maareeyuhu ma halkan warshad halkan biyuhu maareeyay ka yimid ilaa anaga maareeyuhu ma su'aal marka ugu horeysa maareeyaa inuu dadku maareeyaa yahay xogtiisa hayo ogaado tago leeyahay halkan maareeyay maray ilaa cadda way hadashaa wax wanaagsan bay sheegtaa waxa wanaagsan dadku ma arko halka intaasan kaga gudbay intii maareeyaha maareeyad nooteen laga wada warhay halka labaysa biyaha way soo socdaan baa lilii halka waxa laga qoday ceel sanadkii hore halka daami ka sareysa barkad baa laga qoday maxamed madax ugu dusheedana barkad baa laga qoday waxana lagu yiri biyaha halkaas lagu soo ridayaa laga soo jiidayaa dib loo soo daadajinayaa kuwaasi sida ay noqdeen iyagana warkoodi dib baa loo aasaan maqlayay hawsha ka timi goorta biyuhu soo gaarayaan ay dhameystirmayaan waqtiga biyahan aadimka ka sheekaysay sida wanaagsan uga warbixisay goorta maareeyay soo gaarayaan Hargeysa waraabinaya walaalaad mahadsan tahay waxaan maranayaa inta su'aasheedii xaajiga su'aashiisu baa Cabdullaahi dhinac bay iskaga mid yihiin xagga time-ka mashruuc waqti buu leeyahay waqtiga in badan horena waan sheegnay iminkan waan ku celinayaa shirkadda qandaraaska qaadatay Ethiopian-ka iyo Faransiiska time-ka mashruucaas ka yahay waa 27 bisha January 2017 ilaahay baa doog oo inagu waxaan nahay bini aadan de wax walbana waxay ku socdaan qadarka ilaahay haddii wax yar dhacaan wax kasta saameyn bay yeelan karaan hadduu roob weyn oo ay ka shaqeyn kari waayaan oo saameyn buu yeelan karaa de wax kastoo dhaca saameyn bay ku yeeshaan mashruuca laakiin kontraaga xilliga ku saxiixeen ay kaga egtahay in shaqada ku dhamaystiraan waa 27 January ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu inoo dhabeeyo Cabdullaahi Hargeysa anuu Hargeysa dhamaan maareeyo ma wahay Hargeysa xaafad gaar u wada biyo leeyna ma jirto xaafad gaar u wada biyeysana ma jirto biyo laanta xaafadaha ama degmooyinka Hargeysa u kala badan tahay dhamaan shanta degme Hargeysa way biyuhu in badan oo kamid way biyo laayihiin Hargeysa qiyaas ahaanteeda markaan qiyaasno 50% way biyo laadahay 50% ka kale anagu biyaha siinaa kuwa biyaha la laftooda damaarayaan uu nahay uma nihin ma lihin booyada dhaamiya booyadaha rool badan baa waxa laga yaabaa dadku inay ka dharigsan hawshooda de Hargeysana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu biyo inoo keeno laakiin dawladda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaay oo ka yahay hogaaminaya waxaanu ka sheekeynay mashaariic leenahay waxaas socdo intaas dawladdu baa ku jirta maalintii aan xafiiska nimid ama aan xafiiska imid haba yaraatee ma jirin hal mashruuc oo socda haba yaraatee ma jirin hal deeq bixiyo ama qaran bixiyo wakaaladda biyaha la shaqeeya iminkana wakaaladda biyaha Hargeysa waxay ka mid tahay ama ay tahayba waa hay'adda ama hay'adda dawladeed ee Soomaaliland ugu badan ee dhammaan qaran bixiyaasha ugu waaweyn caalamku ku wada jiraan haday noqoto midowga Yurub haday noqoto dawladaha waaweyn ee Ingiriiska iyo
leh hadday noqoto jarmalka iminka jarmalkii ugu dambeeyay maalin dhowta lacag fara badan ayuu bixiyey oo distributionka ama biyo qaybinta ku bixiyey taasna kuma imaan in la iska fadhiyo waxay ku timid dadaal iyo firfircooni dheeraad ee la muujiyey iyo dowladda oo madaxweynuhu ugu horeeyo wasiirka qorsheyntu ka yahay wasaaradda biyuhu tahay annaga aanu ku jirno in xil fara badan la saaray intaasoo shir baan ugu tagnay annaga shirkii ugu horeeyay dalbadno ku niri qaaran bixiyaasha awoodeeda dhaqaale mar hadday kooban tahay Soomaaliland oo inagnahay dowladda budgetkeeda uu intuu leeyahay waxaan u baahanahay in laga caawiyo shir baan ku qabsan Nairobi in lagu qabto qaaran bixiyaha koobaad oo ahaa midowga Yurub shirkaas ay dowladda codsatay bay ay lacag koobaad bixiyeen dee wuxuuna ma aha mashaariicda biyuhu markaynu ka shaqeynay Hargeysa biyo laanteeda oo kale oo dhowr 20 sano wax soo jiitamayay maari marka uu dhamaado kama talo kala mashruucani ama baan idhaahdo waa maxay saameynta ku yeelan karaa mashruucani hadday tahay inay markuu dhamaado mashruuc iyo markuu socdo walaal saameynta ugu badan uu yeelan karaa waxaanu ilaahay ka rajeynaa mashruucaas markuu noo dhamaado qofka hooyo kasta iyo inan kasta iyo aabba kasta Hargeysa ku nool inay biyo jaban oo nadiif oo la isku haleyn karo heli karaan biyaha waxa ugu horeeya jabnaashahooda waa inuu qiimahooda aad u jabnaado qodobka koowaad isaguna waxa ah quality ama nadaafadda biyaha waa inay biyo wanaagsan oo nadiif noqdaan 5 degmo ay caasimadu original ah degmo suugayaal baa jiray laakiin 5 degmo Axmed Dhagax iyo Maxamuud Hayba gacan libax koodbur iyo Joon mid kasta waxaanu sameynay caasimad baan u sameynay waxaanu u yeernay ilaa 25 qof oo degmada ka kooban qaybihii bulshada kala ahaayeen qof degmo walba waxaanu ka siinay prestation baanu ku siinay ama yaani warbixin baanu ka siinay mashruucan bilaabanay wuxuu ka kooban yahay wiigii ugu dambeeyay marka waxaanu casuunay culimada wadanka ama magaca caasimada Hargeysa khadiibinta masaajida badan Hargeysa kamid ilaa 50 masaajid waxaanu u sameynay field trip wax la dhahaa mashruuca indhahoogeena ku soo arkaan waayo qofku markuu ka sheekeynayo iyo markuu meesha tago aad bay kala duwan tahay dhamaan culimadii aanu niri barkaale mashruucana la soo eega aad bay ula yaabeen waxa yaani maskaxdooda keeni waday mashruuca intan leega socda iyo dadku seenay uga warhaynin anaguna in badan waxa laga yaabaa dadka qaarkiin ay nagu dhalilaan mashruuca ka warhayntiisa dadkii uma sheegtaan waayo mashruuca biyihii islaanta Hargeysa joogta ama odaga Hargeysa jooga sidii xaaji Cabdullaahi u sheegay qofku markuu biyihiisa qasabadiisa furtay biyo uga soo dhacaan buu isagu wax rumaysan karaa laakiin mashruuc baa socda way ku adag tahay waxaan u sameynaa field trip ama u sameynaa dad fara badan oo aad u kala duwan Hargeysa board baa loo sameeyay culimaadna casuunaa aqoonyahan baan casuunaa ururka dumarka yaani nagaad iyo dadka la shaqeeya casuunaa u sameynaa oo ku nirkaale mashruuca nala eega ka mashruucu waa mashruucan isleenahay dadka intii nimanka lafteeda waxaan ugu jira qorshayaas inaan dad fara badan oo kala duwan baarlamaankii la guurtay la hore ka xaynay inaan mar labaad ku celino dadku ka warhayntiisa mashruuca ay badato aad buu mahadsan yahay maareeyaha iyo telefishinka Universal magacaygu waa Khadra Baaruud jaamacadda Golis baan ka socdaa gaar ahaan kulliyadda siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka laga hadlayo biyo la'aanta Hargeysa xaafado isku xiga oo marka laga tago xaafadaha fogfogba isku xiga oo aad isugu dhow ayaa xaafadana maalin kasta biyaha helaan xaafadana aan helin taasi miyaana la oran karin biyo qaybinta aad sameysaan ba qorshaheeda ay u baahan tahay in dib loogu noqdo oo biyo qaybintii at least areooyinka isku dhow in si siman biyihii loo siiyo Dikri Yusuf qof walba magacayga waxaan ahay dhika soo jeeda degmada Maxamuud Haybe waxaan weydiin lahaa runtii maareeyaha marka la doonayo baahi wax laga qabto baahi taagan marka wax laga qabto marka la doonayo laga qabto baahi taagan waxa muhiima sideen wada ognahay dad aqoon la baynahay in diraasad la sameeyo diraasad u gudbisay qaadaan bixiyaasha iyo dadku waxay nagala qaban lahaa biyaha dadka helayay iyo dadka ay ka maqan yihiin maxay tahay magacaygu waa Madar Maxamed Nuur waxaan ka soo jeedaa degmada xaafadda Haflandhan waxaan weydiinayaa maareeyaha xaafadda imika shacabka kale biyuhu marka imika la furo 4 saac way socdaan xaafadda imika way degmadooda siman tahay xaafadda kale imika biyo lagama helo marka maxaa ka talaad ka haysaa inay xaafadana isku sinaadaan degmooyinka cadaaladda biyo qaybinta Ilaahay baa horta cadaalad haya inagu waxaan leeyahay baahan ku dadaalna cadaaladda biyaha systemkan imika hore inuu cabnaa Chinese ku sameeyay biyuhu markay geedib la kiimaadaan meesha biyo shiinaha la dhaama biyo khalab soo dhacaan kadibna barkada Chinese kala dhaay ku taala sheedaha ama 150 agtiisa ku soo dhacaan wixii barkada ka dambeeya biyuhu bama tuuro biyuhu iyaga iswada waxa dhici karta laba guri oo isku xiga oo in yar kala sareeyaan dhulka halkay ku kala yaalaan inuu gurina biyaha si fiican u helo gurina aanu helin waa sababta imika nagu kaliftay inaanu systemka hore laga guuro system cusub oo ah xaafado loo barkad gaara in loo sameeyo aad u sareysa marka biyaha barkada lagu tuuro biyo barasha la xaafadii helaan
كايلا ده waxaan aad ugu dadaalnaa anagu in dadka cadaalad wax lagu qaybiyo laakiin waxa dhici karta laba guri isku xiga oo in badan dhacda oo in yar levelka oo kala sareeyo in gurina yiraahdo biyo weligay ma arag gurina yiraahdo biyo weligay ma niibsan State House kuna sigwaana wuxuu kamid yahay meelaha biyaha ay u gaaraan kaalmo biyood ba ku yaala kaalmaha biyaha dadka masaakiinta lagu talagalay xitaa kuwa guryaha ka cabaan way ka sii jabeeyna qiimaha aad baan uga jabinaa biyaha State House waxa laga yaabaa inay ku filaan waan ognahay oo waqti yar oo kooban ay u socdaan laakiin sidii meelood ay State House kamid tahay saddex meelood oo kale imika waanu dhamaystirnaa hawshoodii oo ayaxwana iyo ayaxtu iyo ayaxtri biyo fiican bay helaan oo aad u jaban inta kale ka hadhay shanta meelood oo kale harsanna insha Allah waxaan suulaan mashruucaas markuu dhamaado wada dhamaystiri doontaan Cabdikariin haddaan soo gudbo su'aashiisii daraasad horta waxaan daraasad lahayn waxba laguma qabto cidna qaaraan kuma bixiso daraasad la'aan daraasadu waxay kamid tahay daraasadda xitaa marka hore aad gudbinaysa waa tu kooban laakiin marka shaqada in la qabto noqoto waa meelaha dadku hadii jira inay fahmeen mashaariic biyo kale imika daraasadda Hargeysa waxa la sameeyay master plan-ka Hargeysa 2008 baa la sameeyay midowga guriga baa maalgeliyay qolada la yiraahdo hay'ad African Cement la oran jiray baa sameysay wuxuu sheegay Hargeysa baahideedo dhan yaani halka biyo lagu keeni karo dadka ku nool intay leeyihiin qofka imisa biyo imisa litir biyo isticmaali kara 2008 maanta lafteeda wax badan baa isbedelay marka daraasadahaas waxay ku saleysan degmo kasta Hargeysa ku taala imisa qof baa ku nool biyaha u baahan yahay intee leh hudalada ku yaala intee leeyihiin ka dhamaan daraasadahaas waanu haynaa ilaahay waxaan ku kabarinaa inuu guuleeyo marka waxaan daraasad lahayn haba yaraatee ma jirto Hargeysana sidaan horeba ugu sheegay waan ku celinay mar labaad xaafad degmo biyo wada lihina ma jirto degmadu wada bilaabiyina ma jirto magacaygu Axmed Cabdi Ibrahim golaha dhexe ee kulmiyan kamid ah kulli su'aashiidu aniga waa more technical biyaha qalabka inoo soo saaraya almost 20 megawatt 20 million liters gaasi 20 megawatt kama yara energy-ga ama tamarta inoo soo saaraysa oo 400 oo mitir ku soo gaarsiinaysa waa 330 ceelasha salkooda marka laga soo cabiro ilaa iyo goobta meesha la keenayo oo difference-ga elevation-ku waa 300 iyo waliba zaid mitir 350 almost meelaha weey in 20 megawatt la helo oo mashruuceenu ku base garaysan yahay in beebku aanu ka yaraanin 24 inch beebka imika inoo soo qaadaya ee soo socda ee la soo wadaa waxay xaqiijinaysaa result-ka ah in magaalada Hargeysa ay biyo ku filan hesho maareeyo qodobka bal aad baad nooga yaraa waxaan ku bilaabay magacayga Xaliin Axmed waxaan ka soo waxaa fadlan koolbuur ahna qaybta jigjiga yar xagga warshada masaabiirta maareeyaha ayaan la hadlayaa waxaan ku maareeyay anagu beebka yagii biyo la'aan ma hayso wadaway beebad ka installation waana midii sheegnay تدور دعوة الناس وتين بدل ما يستوى لي محل قدم على محل سنة اللي بنعسنته أحمد عبد الرزاق وحكيت على حافظ نيو هرجيسة وحن أرض دكتور جعد نيو جنريشن فيل أوف مانجمنت السؤال شيء حويه ما رأي مشروع عن محوكو إيجي إنه حلو هلا بهذا بيلا أنا ده هدك التاين مقالة هرجيسة وكلية حدانا الساعة هاينا مستقبل كإنتين لك بو أكتف أحانا يريجني ودتك الرير هرجيسي أي كيف هذه سنتون على دمانتود saddex su'aalood kulay sida Axmed uu sheegay waa more technical waxyaalaha dhibaatooyinka ugu badan haysta waxa kamid ah energy-ga waxa laga yaabaa systemka yare hore u jiray 60% ama 55% dakhliga soo gala wakaalada biyo ku baxaa shidaal iyo spare part iyo mashiinada waaweyn ee biyaha soo turaya waxa tusaale kugu filan geed dawladna waxa yaala ilaa 6 mashiin oo midkiiba yahay 500 kVA biyo khadana waxa yaala 4 mashiin oo midkiiba yahay 350 kVA waxaanu xal in badan isku daynaa inaan energy-ga aad u yareyno waa sababta mashruuca cusub imika looga guuray kaamkii biyo khadar geed dib la toos looga soo bamgarinay ilaa barkada Chinese-ka ku soo dhacay biyo beebka biyaha soo qaadaya malaha Axmed uu naga maqnaayo waa 600 mm oo ductile iron ah ama 24 inch tan xagga dabka waxaanu isku daynaa inaanu bal aad u yareyno kharashka marka boomkan imika aanu dalbanay biyaha soo turaya way ka waaweyn kuwii hore aanu isticmaali jirnay waa KSP Germany oo aad u waaweyn oo midkiiba saacadii soo turi karo 500 mitir kubiik halka bam waxaad arki kartaa aad efficiency-giisu intuu leeyahay waana bamka ka soo tuuri kara geedeeb la Hargeysa toos soo gaarsiin kara 290 mitir marka ceelka laga reebo dherkiisa ay kala hooseeyaan Hargeysa geedeeb elevation-ka 290 mitir toos soo tuuri kara aadna waan isku daynaa insha Allah wixii tala iyo tusaalana waa wax badan more technical buu ka hadlayaa waxaan jeclahay inuu xafiiska intuu noogu yimaado aan qolada engineer-hada iyo waxa KSP iyo Grand Force iyo waxa xiriir badan baan la leenahay imika waxa tusaale kugu filan hore hadla ceelashaan ka qodnay baamka biyaha lagu ridayay biyaha ka soo turaya ceelka in yaanihi waxa loo sameeyaa specification kan sameeyna anagu ay order kan sameeyna lagu sameeyaa oo leeyahay saawan noqda baamku ay noqda yiilkiisu waa inta noqda
marka aad buu mahadsan yahay xaajada hooyo xalimo iyadoo aad u mahadsan waxay ka hadashay distributionkii hore jiray iyo cabasho xaafadda xaqna way u leedahay inkastoo barnaamijkeenu ku focus garaysnaa mashruuca biyaha oo ku focus garaysnay wixii hore cabashadii jirtay laakiin dee way hooyo biyala waana u garaabaya waxaan jecelahay mar labaad haddii muddo ay cabanayeen inay mar labaad ay timaado in halka kasii amba qaadno inanka axmed mustaqbalka mashruuc kastoo samaynaysa waxaa leeyahay business plan ama yacnihii master plan ka hargeysa leedahay ilaa 50 kilomitr kuubik laga soo saaro daraasadiisii markaanu bilaabaynaa insha allah markuu mashruucan dhammaado waxaanu u jihaysan doonaa inaynu butuj dham hirgelino waad mahadsantahay magacaygu waa maari faad xasan dhigta jaamacadda new generation faculty of journalism and mass communication waxaan weydiinayaa maareeyaha horta xaafadan deganay waa xaafadda waa degmada maxamuud haybe gaar ahaan xaafadda jameecada 2009 ilaa 2008 meelaha ilaa 7kii degmadu horta biyo way soo dhici jireen way soo gaari jireen waan garanayaanu in yar ka bacdi baa la yidhi beebab waaweyn baa la gelinaya maadaama loo baahan yahay biyo intan ka badan si ay xaafado u helaan biyaa la geliyey beebabkii keera waaweyn ayaa la geliyey gaar ahaan xagga bidix weliba laamidaa la geliyey xogaha markay yara socotay hawshii ay xaafadii wada xidheen wax biyaa haba yaraatee soo gaadhay maalintii ugu dambeysay xaafadda maxay xukuumaddiina waxay tirsanaysaa inay waxyaabo badan qabato magacaygu waa sacad maxamed degan degmada ibraahim koodbuur su-aasheeda labaad waxa weeyaan waxa macquula maanta ama haddaad xilka ka tagto ama hawl kaleba ay timaado maxaad is leedahay ka maareeya ahaan ama mashruucan ahaada ama wax kale waa dhaxalka ugu weyn ood uga tegayso shacabka hargeysa horta waa mahadsan yahay mubaarak su-aashiisii xaafadda new generation ardayga xaafadda jaamacadda degan mubaarak oo sad la socoto xaafadda jaamacadda waxay ka mid tahay xaafadaha hargeysa biyaha xun leh waxaa laga yaabaa xaafadda xidigta la dhaha isku muuqdaan inay ka mid tahay xaafadaha hargeysa ugu biyaha wanaagsan leh markaa sidaan horeba u sheegay biyaha hargeysa marka barkada laga furo waxay sii maraan suuqa hoose waxa laga yaabaa suuqa hoose berigii intuu ahaan jiray sanad walba inta fooqay ku kordhiya inta xamaamay ku kordhiya inta ummada ku kordhay waynu ognahay kaas saameyn badan waxaa ku yeesha xaafadaha degmooyinka maxamuud haybe iyo axmed dhagax suuqa hoose oo biyuhu sii maraan waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan biyaha in la tashiilo waxaan imika iyadna wadnoonu aada u muhiim ahoo aan uga faa'iidaysanayaa tv-ga laftiisa in dadka ay daawan doonaan ama in dadka ay daawanaya inay yacni wacyigelin ku qaataan waxaad hargeysa arkaysaa roob weyn baa maanta daaya waxaa laga yaabaa majaroorka waxaan la dhahaa biyaha majaroorada inaynu guryo badan hargeysa lahayn isagoo roobkii saacad ka hor daaya in xaafadii bilaa biyataa laga yaabaa marka daraasad baanu ka samaynay majaroorka qofka inta mitro biyaha ka heli jiro inta mitro kuugu ka heli karo yacni ruufkiisa marka waxaan ku waanin lahaa dadka laftooda in waqtiyada roobka oo kale aynu ka faa'iidaysano majaroorkaas oo kale sacad su-aashiisii waa yacnihii caqabado fara badan baa intaan wakaaladda joognay soo maray oo aan isleeyahay waxa dee caqabadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah marka lagu dhiibo wakaalad biyo way ka duwan tahay dhammaan hay-adaha kale dowladda waayo biyuhu waa noloshii qof kasta oo bili-aadan ah ilmaha imika dhashay wuxuu u baahan yahay biyo lagu maydho oo dhiiggii lagaga maydho qofka dhintaana wuxuu u baahan yahay intaan iilka la dhigin in lasii maydho intii u dhexaysana waad garan kartaa qofka baahidiisa biyo jirkeena boqolkiiba inta biyo ah ka waxaa yacnihii waxa ugu badanee aanu dhibaatada caqabadaha ugu badanee waxaa ka mid ah mashruuc biyood marka laga hadlo islaantaasi sidaan horeba u sheegay waxay taaban kartaa ama biyihii gurigeedii ma ka soo dhaceen laakiin mashruuc baa socday shirkad consultancy aanu qaadanay iyo shirkad weyn baanu sidaan samaynay waxaasoo dhamay iyada geli maayeen annagoo dowladdii isku dhana ilaa madaxweyne ilaa yacnihii anoo maareeyo ugu hooseeya inaanu isku dano ku qancino dadkii qaadhaanka bixinayay in hargeysa ay u baahan tahay in la caawiyo annaguna transparent muujinay oo yacnihii hufnaan maamul muujinay oo qof kastaaba in lagu aamini karo oo imika aynu heshiis la seexno oo aad ogtihiin in badan oo ka mid yihiin in qaadhaan bixiyaasha adduunka ugu waaweyn iyo dowladda somaliland ay wada seexeen heshiis mashruuca biyaha hargeysa oo ku heshiiyaan qaadhaan bixiyaashaas inay mashruuca laftiisa qaybsadaan oo yidhaahdaan intaasoo qaadhaan bixiyaasna biyaha productionka ka shaqeeyaan intaasoo qaadhaan bixiyana distributionka ka shaqeeyaan oo alxamdulilah maanta dee haddaynu eegno KFW oo baananka adduunka ugu waaweyn ka mid ah EU-da ood ogtihiin dhaqaalaheeda hadday dhifid ood ogtihiin daniyada ood ogtihiin Norway iyo Netherland World Banka luul mawlid meegaag balayda waxaan ahay xaafadda maxamed mooge guddida nabadgelyada maxamed mooge su'aal baan weydiinaya waxaan weydiinayaa beebabkii la lahaa waxay ka imanayeen xunba weyne waxay ka soo dhacayaan halka madaarka in weydiinaya magaca Cabdirasaaq Maxamed Cismaan waxaan dhigtaa jaamacadda Hargeysa sanadka saddexaad fagalka sayniska waxaan weydiinayaa maareeyaha mashruuc biyaha soo socda mashruuca nadaafadooda iyo caafimaadkooda ma ka fikirtaan dadka caasimadda ku nool
oo ma samaysa laab testiyo ma baadhan biyaha inay boqolkiiba sagaashan nadiif yihiin. aan ku horeeyo horta barnaamijkan maanta wuxuu fogas ama ku jihaysnaa mashruuca biyo balaarinta caasimadda Hargeysa geedeble hore hadlay mashruuca xunba weyne inta weydiisay wuxuu ka mid tahay xunba weyne waxa ka mid tahay akufarada ama meelaha biyuhu ku jiraan Hargeysa biyo laga keeni karo ilaa 5 meelood baa Hargeysa marka dhaamka laga tago biyo lagu keeni karaa 5 meelood meel ka mid ay tahay mashruuca xunba weyne waxay noo waday bisha cas ay Imaaraadka ama Khalifa Foundation qolada la yiraahdo bisha cas ma Khalifa Foundation bay noo waday shirkad kale oo Al-Falaaxna la dhaalay oo Caraba ayaa qandaraas kala soo siiyay ceelashii 12 ceel ka qodan xunba weyne doo xunba weyne waxa ku xigay inay soo qaadaan pipeline-kii iyo barkadihi ay soo qaadaan oo Hargeysa soo gaarsiiyaan sida deeq bixiyaasha ama qaaran bixiyaasha u shaqeeyaan mar haddii meel qaaran bixiya ku jiro wax laga yaabaa qaaran bixiya kale ma geli karo qoladan carabtuna hadii jiray ka duwan tahay qoladan ama shirka aynu ka sheekeynaa delivery marka insha Allah ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu phase-kii labaad oo ah beebkii iyo baraagihii inay bilaabaan laakiin ilaa imika intaan ogahay hawshu xaggooga ka xaniban tahay xaggeena waxba kama yaalaan ceelashu way qodan yihiin inay soo qaadaan pipeline-kii unbaa harsan insha Allah waxaan rajeynayaa inay soo qaadi doonaan su-aasha Cabdirasaaq jaamacadda Hargeysa aad buu mahadsan yahay koorta quality-ga biyaha Hargeysa waa biyayowga adduunka ugu wanaagsan bay ka mid tahay tusaale waxa kugu filan anagu laab baanu aan leenahay biyaha marar badan baan imka waxa hospitaalka la aadan Sheekh Hospital ee ku xiga hospitaalka weyn ee Hargeysa bariga ka xiga waa hospitaal Caruureed waxa gacanta ku hayn jiray hay'ad Talyaaniga maalintii la dhameystiray ninkii hay'adda haysta Talyaaniga xafiisku ugu yimid wuxuu ugu yiri dabi waxaan sameynaa hospitaal Caruureed oo ay dadkii xalay dhashayna ugu yar yahay ilaa 2 sano ugu weyn yahay biyaha quality-gooda waxaan doonayaa inaan hospitaalka biyo gelino marka quality-ga biyaha maxaan ku aamini karnaa waxaan uga warramay quality-ga Hargeysa biyaha laakiin waxaan ku mar haddii aad hospitaaltiin anaga hadalkayga ha aaminina gaari baan siiyay geedeble u tagay wuxuu tagay meesha la yiraahdo biyashinaha Hargeysa yimid 3 saambal oo ah meeshii biyo ka soo baxayeen iyo meeshii ku soo dhacayeen meeshii ugu dambeysay biyaha laga qaaday buu saambal ka qaaday Talyaanigu u diray Talyaanigii jawaabtoodii iyagoo uu ila soo sheergalay marka wuxuu ku soo jawaabtay ay noqotay inay yihiin biyaha ugu wanaagsan caalamka biyo kamid ah biyaha toos loo isticmaali karo imikana waxaanu sameynay marar badan baan waxaanu qaadnay hore hadlay kala markaan biyaha sameeyay waxaanu ka qaadnay la tasban ka qaadnay biyaha samples baan ka qaadnay waxaanu u dirnay Nairobi oo Kenya marka biyihii waxay noqdeen biyo aad u wanaagsan alxamdulillah imikana si aanan ugu tirsanin laab dibadeed oo hadii jir laabka dibadda ayna ornin laab hal la qaado waxa mashruucan SDF ta ku jirtay in laab weyn oo casri Hargeysa laga sameeyay caasimadeeda wakaaladda dhexdeeda maalin dhow taloon dhagax dhigno wasiirka qorsheynta dhagax dhigay si fiican buu socdaa dhismay cidii doonaysa way soo arki kartaa qalabkii lagu shaqeyn lahaa laabkaas lagu shaqeyn lahaa waa la dalbaday shirkad Jarmal la siiyay iyadoo way keenaysaa marka ardaydii ka shaqeyn lahaa ama dhalinyartii ka shaqeyn lahayd waanu xayeysiinay 3 arday baa ku guuleystay alxamdulillah oo reer Hargeysa qaarkoodna ka jaamacadda dibadda ka yimaadeen saddexduba jaamacadda dibadda ka yimaadeen midna Suudaan ka soo baxay midna Turkiga ka soo baxay oo soo bartay laabka waxaan nasiib wanaaga inaan saddexdii imka training u dirayno shirkadda Coca-Cola ama SBI meesheeda jaleelo si lagu soo tababaro biyaha way ilaa imka laabka inuu hayna uga casrisan waa laabka shirkadda Coca-Cola leedahay way caagad kasto Coca-Cola ama Sprite oo la sameeyo wax la sii mariyaa laab marka waxay nagu siiyeen iyagoo aad ugu mahadnaqay shirkadda SBI Somaliland inay yiraahdaan ardayda saddex arday u qaatay inay noqdaan lab technicians ka mustaqbalka Hargeysa biyaha inaan tababar idin siino insha Allah weega soo socdaan u dirana dhismaha uu noo dhamaan doonaa wixii maanta ka dambeeyana u dirimayno inaynu yaani sambalka ama biyaheena quality-gooda dibadda u dirimayno gudaheena insha Allah ku sameyn doona wixii dibadda loo baahdana waynu dir doon laakiin waxaynu wada ognahay quality-ga biyaha Hargeysa aad u wanaagsan yihiin oo marka waad mahadsantahay aad iyo aad baad mahadsantahay ugu dambeyntii gabagabadii barnaamijkan ku jirnaa maxaad dadweynaha ku daawanaya aad oran lahayd horta dadweynaha caasimadda Hargeysa ku nool barnaamijkan daawanay waxaan ugu bushaareyn lahaa in mashruucii gabagaba ku dhow yahay iyagana waxaan ka codsan lahaa mashruucaasi maanta halkuu marayo wuxuu u baahan yahay duco in Ilaahay nagu guuleeyo mashruuca inta gacanta ku haysan Ilaahay khayr ka siiyo hawshana xil badan ayaan iska saarnay hadii habeen waxaan ka shaqeynaa mashruuca waxaan aad ugu mahadnaqayaa cid kastoo gacan ka geysatay oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland wasaaradda qorsheynta qaranka wasaaradda biyaha iyo dhammaan hawlwadeenada hadii UN Habitat ka mid tahay SDF dhammaan 4 deeq bixiyay caalamiga ah ee SDF sanduuqa la ku midoobay EU-da iyo dadka deegaanka mashaariicdaas ka socdaan oo gacan weyn ka geystay oo iyaga la'aan وهاك أديات بدل ما سنتهي ماريين تاسعين كسر قبل قبلنا يداود البرنامج كأنه كويجني مشروع هرمرنت الصومال NSDF
meelaha uu maalgeliyo uu ka mid yahay mashruuca biyo ballaarinta magaalada Hargeysa waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha ka soo qayb galay ee soo ajiibay yeelmadan u yeernay ee ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa maareeyaha wakaalada biyaha oo barnaamijkeenu marti ku ah Ibrahim Siyaadonis waxaan kaloo mahad celinayaa xafiiska warbaahinta ee wasaaradda qorsheynta oo isagu qayb ka qaatay barnaamijkan dhammaanteen barnaamijkan mid lamid ah intaan ku kulmi doono waxaan idin soo jeedinaya anigoo Cabdirashiid Cabdi Wahaab Xuseena waxaan idiga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh